السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي مقالي كسود هذا القناة كنا فضلنا هديات نقول عصب سبسكرايب نوده هدا هرنا لجوجتنا وكم حسن تعالى جوجدان كينا runtii waxaan leeyahay asxaabta nagu soo biirtay soo dhawaada ayaa idin leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada waxaan hore ugu hadalnay heat circumference-ga ama wareegga madaxa ama intuu la eg yahay madaxa caruurta markii la dhalo qaybta waxaan ka soo hadalnay wiilasha marka wiilashii gabdhaha farqi yar ayaa u dhaxeeya maanta insha Allah waxaan ka hadli doonaa gabdhaha markii la dhalo ilaa iyo hal sano ay ka gaaraan hooyooyinka gabdhaha heesta soo dhawaada ayaa idin leeyahay kuwa wiilasha hore u soo gudbinay marka waxaa laga rabaa gabadhaada marka ay dhalato kow tahay 31 ayaa laga rabaa inuu madaxeeda noqdo wareegiisa ilaa iyo 33 ayaa loo baahan yahay inuu noqdo inta badan wiilasha waxay ka hooseeyaan 1 pound oo kaliya sidoo kale hal bil markay gaarto waxaa loo baahan yahay gabadhaada inuu noqdo culeyska madaxeeda wareegiisa 35 ilaa iyo ugu yaraan waa inuu 35 noqdo ugu badnaan uu noqdaa 37 sidoo kale 2 month markay jirto waxaa loo baahan yahay inay noqoto 36 ugu yaraan ugu badnaan inay noqoto 38 sidoo kale 3 bil markay ku gaarto waxaa la rabaa inuu noqdo madaxeeda 37 ilaa iyo 40.1 sidoo kale 4 bil markay gaarto ilmaha gabdhaha ah waxaa loo baahan yahay inay noqdaan 38 ilaa iyo 41.2 5 bil markay gaaraan gabdhaha waxaa loo baahan yahay inuu noqdo wareegga madaxooda 39 ilaa iyo 42.1 centimeter inuu noqdo square ah sidoo kale 6 month markay gaaraan waxaa loo baahan yahay inuu noqdo 40 ilaa 43 8 bil markay gaaraan waxaa loo baahan yahay inay noqdaan 41 ugu yaraan ugu badnaana 44 isku wareeg oo centimeter ah sidoo kale 10 month markay gaaraan ama 10 bil waxaa loo baahan yahay inay noqdaan 42 ilaa iyo 44 12 bil ama hal sano markay ku gaarto gabadhaada waxaa laga rabaa madaxeeda inuu noqdo markii la cabirayo waad aragteen ilmaha waxaa laga cabiraa dhererka laga cabiraa miisaanka laga cabiraa sidoo kale waxaa laga cabiraa madaxa laga cabiraa sidoo kale waxaa laga cabiraa muruqa ayaa laga cabiraa garabka si ay malnutrition u tahay inay malnutrition tahay in kale in la ogaado marka qaybahaas insha Allah haduu jaanis kana siiyo waan ka soo hadli doonaa gabadhaada markay hal sano ku gaarto waxaa laga rabaa inuu noqdo madaxeeda 43 ilaa 45 cm isku wareeg marka soo dhawaada ayaa idin leeyahay farqigaas yar ayaa u dhaxeeya wiilasha iyo gabdhaha sida badan aan ogsoonahay wiilasha iyo gabdhahana isku mid ma ahan dhan walba xoogaa wiilasha ayaa xitaa xagga culeyska inta badan wiilasha ayaa loo badiyaa inay wax yar koreeyaan marka hadda wax saas kama kala weyna waa 1 bis baa u dhaxeeya ama boontiyaal baa u dhaxeeya marka hooyo kasto gabar haysata marka hadii aan fiirsatay fiidiyoga hore hadhiin aniga tayada intaan ma aha madaxeeda qaybtaas waa qaybta wiilasha qaybta gabdhahana waa kan ma sha Allah Allah idin barakeeyo gabdhaha waa ma sha Allah baraka badan yihiin Allah maxay haytood intii ubad haysata Allah u barakeeyo inta haysanina ubad baariyaal oo degdeg Allah siiyo ما شاء الله marka inta badan waxaan soo gudbi doonaa insha Allah ta'ala waxyaabo ku saabsan waxyaabaha caruurta ilaa haduu noo saamaxo insha Allah ta'ala soona booqda ayaa idin leeyahay page-keena lagtan inoo dhaha meel fog ayaan gaarsiinaysa insha Allah ta'ala intii taqaano way taqaana oo hooyooyinka inta badan ma sha Allah hooyooyin wax bartay aad bay uga buuxan intaana fahamsanayna ma sha Allah fahma oo saaxiibta wiil haysto kale taadin gabar haysto maxaa waa isku wareeg manini ilmaha ayagoo gabdho yihiin xitaa way kala madax weynaan karaan marka cunug walba waa sidoo Ilaahay u abuuray ma sha Allah soo dhawaada ayaa idin leeyahay markale